Asalaamu calaykum. Waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walbood iga daawanaysid hadda. Maanta waxaan wadaa sheeko ama qiso yaabkeedii ah oo ka dhacday dalka Sacuudi Carabiya, gaar ahaan magaalada Taa'if. Dab baa wuxuu qabsaday guri, kadibna waxaa la wargeliyey dabdamiska inay dhaqso yimaadaan oo ay gurigaas damiyaan. Dabdamiskii markay guriga yimaadeen ay dabkii damiyeen, waxay ka heleen gurigii qol ka mid ah qolalkii gubtay 4 qof oo meyd ah, wajigooda aan la sixi karin, aadna jirkooda uu gubtay. Waxay u yeedheen askarta si ay baaritaan u sameeyaan oo ay u qaadaan meydka, iyo 2 ciyaal, 2 dhalinyaro ah, wiil iyo gabadha oo meel fadhiyo oo ku ooyayay. Marka 4 qof waxay ahaayeen hooyada iyo aabaha guriga iska lahaa ee ciyaalka dhalay, iyo 2 wiil oo ay dhaleen, mid yar iyo mid weyn. Labadan banaanka ku ooyeysana waa wiil iyo gabadha islaanta iyo odayga dhintay, Ilaahu naxariistay, ay dhaleen. Waxaa kaloo guriga joogay ciyaal yaryar oo iyagana qol gooni ah jiifay. Gurigu wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo fadhi. Marka waxaa gubtay fadhiga iyo qol kaleeto bas, iyo si aad u gubtay, inta kale dabku ma gaadhin, maxaa dabdamiska dhaqso soo gaaray oo damiyay. Waxay weydiiyeen wiilka iyo gabadha dabku sida uu u dhacay. Wiilku wuxuu ugu jawaabay markay askartii yimaadeen, hooyaday baa waxay banaanka iiga dirtay inaan wax ka soo gado, kadibna markaan soo noqday waxaan imid reerkii oo dhintay iyo gurigii oo gubtay. Markii ay meydka qaadayeen askartuna, waxyaabaha aadka uga yaabiyay ay ku arkeen waxay tahay meydku aad buu u urayay, sida meyd dhowr maalin ka hor dhintay oo kale. Waxay meyd markaa dad dhintay markaas aad uma uraan. Meydku aad buu u urayay, heeray u dulqaadan waayeen, ay u adkeysan waayeen urta qarmuun ka soo baxaysay. Talabaadna isla meeshii iyagoo taagan oo weli meydkii qaadin, waxyaabaha ay la yaabeen kale ay arkeen waxay ahayd 4 qofba in la toogtay oo xabadi ku dhacday. Iyagoo ka shaki qaba isla markiiba markay arkeen dadkan inaysan u dhimanin dabkan ee xabadu ay ka horeysay dabka, bay waxay geeyeen meesha lagu baaro meydka. Markii la soo baarayna waxaa la ogaaday 1 dadkani inay dhinteen dhowr maalin ka hor, talabaadna dadkanu inaysan u dhiman dabkii qabsaday iyo ee jirkooda gubay, ay u dhinteen xabad lagu dhuftay. Su'aashu waxay tahay, dadkan yaa dilay? Xusa been u sheegay wiilku uu yiri hooyaday hadda ka hor waxay ii dirtay muddo yar ka hor waxay ii dirtay banaanka iga wax ka soo gadba igu tiriyoon aaday. Waxay ka shakiyeen wiilkii iyo gabadhii, waxayna geeyeen baaritaan inay waraysi la yeeshaan sida wax u dhaceen iyo sababta uu wiilku beenta u sheegay. Markii hore way diideen inay waxba qirtaan, in badan baa la waraysanayay. Ugu dambeyn wiilka qirtay wixii meesha ka dhacay, wuxuu yiri hooyaday iyo aabaha iyo reerka annagaa dilnay, dabkana annagaa shidnay. Marka la weydiiyay sababta rasmiga ah ay ka dambeysay inay dilaan hooyadood iyo aabahood iyo walaaladood gurigana ay gubaan, waxay dhaheen aabahayna wuxuu ahaa mid aad u dhib badan, lacagta aan noo ogolayn, cadaadis badan, control iyo kadeed badan, saasaan ugu kaliftay inaan dilno. Askartii way aamini weyday. Waxay dib ugu noqdeen dariskoodii iyo dadkii aqoonta u lahaa odayga dhintay. Waxay ku dhaheen odaygan ilmuhiisa siduu ula tacaamuli jiray iyo dadkii yaqaan. Waxay ku dhaheen in aad wanaagsan buu ahaa. Wiilkana mar dhowba aabihii wuxuu u soo gaday gaari aad qaali u ah oo noocyada cusub ah. Gabadha waxay haysataa guriga markii baaritaan dib ay ugu noqdeen ay soo sameeyeen askartu, cadarada iyo make-upka iyo dharka noocyadooda ugu cusub bay haysataa oo ugu qaalisan waliba oo aabaheed u gaday. Aabaheed aad buu u jeclaa gabadha, aad buu u jeclaa u kolkolin jiray. Marka gabadha wiilka ka weyn waxay jirtaa gabadhu 19 sano, wiilkana wuxuu jiraa 17 sano. Labada walaaladooda wiilasha ah ee dhintayna midna iyagu kor uga weynaa, midna iyagu hoos uga yaraa. Kadib waxay soo ogaadeen xidhiidh sharci darro ah inuu ka dhaxeeyay wiilkan iyo gabadhan walaalaha ah ee askartu ay keentay baaritaanka ku hayso. Inuu xidhiidh sharci darro ah ka dhaxeeyay. Xidhiidhkaas oo muddo soo socday, waxaa ogaaday hooyadood xidhiidhka ka dhaxeeya sharci darrada ah wiilkeedii gabadheeda. Kadibna waxay ku tiri intay la yaabtay arrintii dhakafaar ku noqotay, waxaan idin sheegayaa aabihiin oo ogeysiinaya. Aabahoodna wuu maqnaa, guriga wuu ka maqnaa. Marka hore waxaa la dilay reerka, kadib baa odayga la dilay, laakiin odaygu uu ka maqnaa reerka, safar buu ku maqnaa, meel buu aaday. Markay hooyadood intaa ugu goodisay inay u sheegayso aabahood markuu yimaado, bay waxay qorshaysteen hooyadood inay dilaan. Walaalkooda ka yar bay la heshiiyeen, waxay ku dhaheen waxaan rabnaa inaan hooyo dilnee, ma nala dilaysaa? Marka wuxuu ku yiri haa, waan idinla dilayaa. Isagoo u malaynaya dee iska ciyaar, ma qof baa ku fikiraya hooyadii buu dilayaa.
kayar wuxuu u malaynayay inay iska ciyaarayaan markii wuxuu ku yidhi waan idinla dilayaa haa iyana waxay aamineen wiilka yar inuu dee ballan la galayo uu la samaynayo qorshaha kula jiro waxaa la gaaray maalinkii ay fulin lahaayeen qorshaha ay rabaan hooyadood inay dilaan biskooladba marka soo qaateen biskoolad aan u malaynaya dee maadaama ilmo yaryar ahaayeen inuu aabahood iska lahaa ama hadday doonaan suuqa madowba kasoo gateen wiilkii yaraaba waxay ku dheheen hooyaan dilaynaa kaala qorshaha nala fuli markuu arkay inay daacad ka tahay oo dhab ka tahay oo ciyaar aysan ka ahayn wuu diiday wiilkii yaraa inuu la fuliyo qorshihii kadibna waxaa dhacday wiilkii yaraa inuu iskaga cararo iskaga tago sidaaduu uga dhaqaaqay bay guriga dhexdiisa ku toogteen wiilkii yaraa madaxa ka toogteen walaalkooda weyn baa wuxuu maqlay dhawaqa xabadda dhacday isagoo ku jira qol ka mid ah qolalka guriga markuu soo baxayna isna way toogteen isla markiiba labadii wiil markay meeshii ku toogteen dhiigoodina meeshii yaacayo hooyadood oo iyadana maqashay xabadda oo kusoo oroday baa dhanka wiilasha usoo carartay iyaga maysan arag iyagaa ka il horreeyay hooyadood oo usii socota dhanka wiilasha xabadda ku dhacday usii socota bay gadaal ka toogteen iyadana xabadda gadaal kaga dhufteen saddexdii qofba saasay ku dileen maalinka dabku kacayo dhowr maalin ka hor bayna dileen meydkii bay soo qaadeen qol bay geeyeen wiilka yarka ay qaadeen meydkiisii waxay damcaan inay dadka xabad xabad u aasi karaan hadday u suurto gashay si aan askarna u ogaan cidina u ogaanin hadhowna meelay ka bixeen ma garanayna iyo waxay doonaan oo beenaba aabahood ay u sheegaan ilmihii yaryaraa ee iyaga ka yaryaraana waxay siiyeen dawo ama kuura xad dhaafa oo dawada hurdada ah bay siiyeen kaniinka hurdada oo xad dhaafa bay siiyeen kuura xad dhaafa oo ilmihii yaryaraa muddo dhowr bari ah way jiifeen kor umaysan kicin qol gooniya iska jiifaan ciyaalkii yaryarka ahaa wiilkii yaraa walaalkoodaha ay dileen meydkiisii bay qaadeen waxay geeyeen magaalada ka bixeeda meel ah waxay isdheheen ku aasa markay xoogaa yargod iyo wax u faarfaadheen bay meesha cagta kusoo badato dad badan iyo wax marmar ay arkeenoo way iska soo noqdeen way soo ceshteen mar kale haddana damceen inay soo aasaan banaanka kusoo gubaan dab yar iyo wax markay ku shideen baa la dareemay way soo qaadeen oo haddana gurigay kusoo celiyeen waxay qorshaysteen inay gubaan gidigoodba dab bay ku shideen iyo gaas intay ku bilbileen saddexdii qofba dabkii markuu gurigay deganaayeen waxay isdheheen waa la dareemayaa darisku wuxuu u wacayaa dabdamisku u yeedhayaa haddii qiiq fara badan iyo olol iyo wax la dareemo marka xoogaa markuu gubtay bay haddana damiyeen dhowr mar bay intay dabka ku shidaan markuu xoogaa yaro gubtaba ay damiyaan cuntay soo gataan labadoodu way iska cunaan ilmihii yaryara way iska jiifaan reerkii ay dileen afarta qof ka koobnaa qol halkan uu ku jira marna ku gubaan sidii hindidii marna ay agtooda ku cunteeyaan maalinkii dambe waxay go'aansadeen inay askarta wargeliyaan oo ku dhahaan dabba guriganaga ka kacay marka waxay qorshaysteen oo soo gateen gaas waxay aadeen kaalinta shidaalka gaas aad u badan bay soo gateen dabkii bay ku bilbileen waxaan ka wadaa gurigii oo dhan bay ku bilbileen gaaskii kadibna waxay qabadsiiyeen dab bay qabadsiiyeen jaajar bay soo qaadeen jaajarka ee xadhigga dabka ay dhinac ka gubeen oy rabaan hadhow askartu markay weydiiso dabkani muxuu ka kacay inay dhahaan jaajarkan buu dabku ka kacay jaajarkii bay gubeen dabkay ku dhex rideen sidiiba marka dabku ku kacay oo u wargeliyeen askartii markay meesha timidna dadkan way dareemeen markiiba in aysan ahayn wax dhintay meyd hadda dhintay inuusan ahayn urka ka baxayay arrintii waxay la noqotay la yaab dambi baadhistii iyo dadkii oo dhanba waxay u yeedheen 9 dhakhtar oo cilmi nafsi ah si dadkan maskaxdoodii iyo iimaankoodii inuu joogo bal horta loo ogaado maskaxiyan dad u waalan aysan ahayn 2 qof oo walaalo ah xiriir sharci darro ah oo noocaas ah kuma dhex mari karayo hadday dhacdana reerku inay dilaan oo sida qaabka daran ee foosha xun intay u dilaan ay u gubaan wax aad u la yaab badan bay noqotay 9 dhakhtar oo cilmi nafsiga markii loo keenay dhakhaatiirtii baa ku waalan gaadhay iyaga wareysanaysay rabtay inay ogaato waxay dhaheen dadkan maskaxdoodu waa saliim wax alla iyo wax ka maqan ma jiro wax walbay sameeyeen maskaxdoodu taam ay xiskoodu joogay sameeyeen ma aha dad maskaxiyan u waalan ama xanuun qaba waxaa loo noqday waxbarashadoodii iyo asxaabtoodii iyo dadkii yaqaanay siday ahaayeen tacaamulkoodu markii hore ama dhaqankoodu waxay dhaheen hab dhaqankoodu wuxuu ahaa mid wanaagsan dad aad u afgaaban bay ahaayeen si gaar ah waliba wiilka wuxuu ahaa wiil idab badan anshax badan waxbarashadiisa aada saaxiibo badan iyo waxa aan lahayn aad u fiican amaan baa maaragtay kala kulmeen dhinacii ardayda iyo macallimiintii iyo saaxiibadii ay weydiiyeen wax lagu sameeyay inta la waayay baa waxaa loo yeeray si loo xukumo oo diinta islaamka iyo shariicadu waxay ka qabto loogu xukumo 6 qaadi oo qaadiyaasha wadanka ah si ay uga wada hadlaan wiilkan iyo gabadhan falka inta la egeystay
wixii lagu samayn lahaa. waxaan la yaabanahay on aad iyo aad ula yaaba wallahi waxay ka mid tahay qisaska intaan sheeko maqlayay ama dhacdo maqlayay tii ugu foolka xumayd in abid maqlo. marka dadka waalidkood dunida ku dilay ee waliba ku gubay ee ku cadaabay aakhira maxay filayaan? halkan haddaan isla soo gaadhnay oo sheekada dhamaystay waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto oo nooga mid noqoto. fadlan subscribe taabo. wixii fikir iyo ray isweydaarsiya qaybta hoose ee faallada noogu reeb oo inoo muuqaalka kan xiga insha allah. nabad iyo caafimaad baan idinka tegay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.